halkani waa jasiiradda Sacaadadiin, mid ka mid ah jasiiradaha ugu quruxda iyo bilicda wanaagsan dhulka Soomaalida. Sacaadadiin, magaca jasiiraddan waxaa loogu magac daray boqor la dhihi jiray Maxamed Sacaadadiin oo xukumayay deegaanka Saylac waqtiyadii dowladda Cusmaaniyiinta. Maxamed Sacaadadiin waxaa lagu dilay oo lagu aasay jasiiraddan magaciisa huwan ilaa maanta. Sanadka dhimashadiisu waxay ku beegnayd 1415 markii uu dagaal dhex maray boqor xabashi ahaa oo la dhihi jiray Yeeshaaq, kaas oo xukumayay dhulka Itoobiya. Jasiiradda Sacaadadiin waa tan ugu weyn gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Waxay ku taalaa gudaha ama bartamaha badda cas. Jasiiraddani waxay masaafo ahaan 6 mayl u jirtaa magaalada Saylac ee gobolka Awdal, kagana beegan tahay dhinaca waqooyi galbeed. Jasiiradda Sacaadadiin waa jasiirad ku habboon dalxiiska. Waxa uu Allah ku manaystay qurux dabiici ah oo ay ugu horreyso dhir jiilaal iyo roob cagaaran oo aanay indhuhu marnaba ka xiisa go'in. Jasiiradda waxaa dhex mara gacan sida webiga ah, waxaana dhinacyada ka xiga dhir cagaaran oo aad u tiro badan. Dhirta ku taalla jasiiraddani ma aha mid ka baxda guud ahaan dhulka Soomaalida, waxaana dhirtan inta badan ku beeray dowladda Cusmaaniyiinta ee deegaanadaasi waqtiyo hore ka talinaysay ka hor intaanu Ingiriisku iman deegaanada gobollada waqooyi. Dhirtan waxaa ugu caansan geedka loo yaqaan qandalka oo leh cagaar saa'id ah oo meel fog laga arkayo midabkiisa doogga ah. Jasiiradda waxaa ku yaalla barkad ay ku shubmaan biyaha roobka, taasoo u dhisay dalka Turkiga. Bilicda, deganaanshaha iyo nimcooyinka badan ee Eebbe ku galaday deegaankan cajiibka ah waa mid ku habboon daawashada iyo nasiinada. Jasiiradda Sacaadadiin waa mid dabiici ahaan soo jiidanaysa dalxiisayaasha ka imaanaya dhulka Soomaalida, geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Marka la qiimeeyo quruxda, deganaanshaha iyo deegaanada bilicsan ee jasiiradda Sacaadadiin.